waa kolonyada saakay ka galbisay madaxtooyada madaxweyne Farmaajo ee geysay garoonka diyaaradaha aadan cadde waxa uu madaxweynaha u duulay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka aan badda lahayn ee Itoobiya sida wararku sheegayaan waxa madaxweynaha lagu martiqaaday caleema saarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo bishii Juun xisbigiisa talada dalkaasi haya uu ku guuleystay doorashadii wadankaasi ka dhacay Farmaajo iyo Abiy ayaa la filayaa inay yeeshaan kolonyo duceed ay uga hadlayaan xaaladda dalka iyo waliba khilaafaadka ka dhashay muranka hareeyay arrimaha doorashooyinka wararka qaar waxa ay tilmaamayaan in madaxweyne Farmaajo laga yaabay inuu sii aado magaalada Asmara ee dalka Eritrea waxaana soo baxaya warar sheegaya in la qorsheynayo ciidamadii hore tababarka loogu qaaday Eritrea qayb kamid ah in dalka dib loogu soo celiyo oo uu madaxweynuhu tababar u soo xiro Farmaajo iyo Abiy waa saaxiibo dhow oo siyaasadeed waxa ay kala hore hogaamiyaha keligii taliska ah ee Eritrea siyaas afwaarki la yeesheen iskaashi abuuray tuhun badan balse waayahan ma kulmin oo mid kasta xasarada ka oogan gudaha xukunkiisa ayuu ka badin waayay safarka oo Farmaajo ugu baxay Itoobiya ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa iyadoo khilaaf xun oo la xallin waayay uu kala dhaxeeyay ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble lama oga wajiga socdaalka Farmaajo uu jahayn doono khilaafka kala dhaxeeya Mr Roble si kastaba safarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu Farmaajo dalka uga baxo tan iyo 25kii bishii Abriil xilligaas oo Muqdisho ay ka dhaceen qalalaase iyo isku dhac hubeysan oo looga hortagay muddo kororsigii 2 sano ah saakayna madaxtooyada waxa ka galbisay madaxweyne Farmaajo gaadiid fara badan iyo waliba askar intii hore looga bartay aad uga badan